Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran waxaanayna dhalinyaradii iyo dagaalka dadkii gali jiray baan gacanta ku haynaa ma rabno in dhiig kale ku daato waxaad hadda sidaad ogtiin 2 bilood baan waxaanu hawlgal ugu jirnay nabadajin magaalada Galdob iyo Bandiirada inta ka dhaxleh ma rabno inaan marka dadkii ku colaadii shalay anagu aan ka toobad keenay Soomaaliya oo uga digayna inaan ku celino ma rabno waxaan dawladda Puntland uga digaynaa arintaas inay ka qoomamayso u sheegto dadkii wax gaareen biletoos ka bixiso aad iyo aad baan arintaas uga warramaynaa sida loo turjumayna ma aha sida anagu aan u dhigay oo runtii oo Ilaah ka warqaba weeye dadka hadda ku dhintay dadkii culimada ahaa oo aad loogu hanweynaa weeye ama ganacsatadii ama odayaashii dadkaas weeye dadka ku leeday marka hore waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii shuhaadada ahaa oo ku dhintay weerarkii xalay iyo saakay ay ku soo qaadeen ciidamada Puntland waxaan adduunka u sheegaynaa intana maqlaysa iyo intana la joogtaba weerarkaas inuu ahaa weerar xaq darra oo qalad ah weerar si qaawan loogu soo qaaday beel weerar lagu burburiyay dhaqaalihii iyo guryihii iyo dadku wuxuu lahaa hanti weerar lagu laayay maatadii iyo caruurtii weerar aan waxba loo reeban hubka noocyadiisa kala gedisan loo isticmaalay annagu waa isxakamaynay haddaan nahay beesha leelkase waxaan hortaaganahay ciidankayagii waxaan hortaaganahay dadkayagii waxaan hortaaganahay dadkii dhibaatadu gaartay oo la xasuuqay oo la baabi'iyay haddaan odayaalnahay waxaan rabnaa dhibaato dambe inaysan dhicin waxaan doonaynaa nabadda sidii aan u raadinaynay inaan u raadino waxaan ka fakaraynaa mustaqbalka iyo danta Soomaaliyeed waxaan ka fakaraynaa danta reer mudug waxaan rabnaa dawladda Puntland ayada ujeedada ay ka lahayd ayada taqaanee inay si cad wax uga qabato isla markaana sharciga soo horkeento dadkii falka ka dambeeyay aniga magacayga maxamed guuleed Muuse la yiraahdo dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ahna beelaha leelkase dhaqankoodan kamid ah dadkana garanaya waa og yahay inaanu fidna ka talino iyo inaanu nabad ka talino waana garanaya ma qanaroona garanaysaa maqlaysa odayaasha naga horeeyay oo codkan nooga horeeyay waxay ku hadleen baanu adkaynaynaa inay jiraan waxaanu u sheegaynaa beesha caalamka waxaanu u sheegaynaa Soomaaliya waxaan u sheegaynaa Puntland maamulka Puntland waxaan u sheegaynaa intii nabadda danaynaysa falka xalaq ka dhacay gaalkaayo sida loo wajaho loo sheegay inuu sanahay ee uu yahay sidaanu sheegayno halka waa lagu soo duulay garsoorta koonfuraa la yiraahdaa waa lagu soo duulay hubkii dawladda lagu soo duulay teknikii dawladda lagu soo duulay diraaskii dawladda loo soo qaatay anagu Puntland anaga ka tirsan oo Puntland baa saa yeeshay malihiina waxaan leenahay Puntland ciidan ka yimid baa saa yeelay ciidamo Puntland ka yimid baa saa yeelay waxa loo adeegsaday waxaan aqliga gali karin makhluuq tiro badan oo nus milyuun gaaraya baa waxa lagu magacaabay maandooriye lagu magacaabay maandooriyuhu qofkii lagu arko ama meeshii lagu arko ama meeshuu joogo ma lagu qabto waxa lagu burburiyay mawlacyadii diinta waxa lagu burburiyay masaajidadii waxa lagu burburiyay sagiirkii waxa lagu laayay caruurihii waxa lagu laayay aqoon-yahankii waxa lagu laayay culumaa diinkii baa lagu laayay markaas waxa la leeyahay waxa laga hortagay cabto iyo waxa laga hortagay maandooriye waxaanu leenahay oo u sheegaynaa intaas aanu u sheegaynaa intana maqlaysa iyo intana danaynaysa iyo inta nabadda danaynaysa iyo inta Puntland sharafkeeda danaynaysa iyo inta Soomaaliya danaynaysa arinta in wax laga qabto oo sida loo dhigay ayaan ahayn sidaan u sheegaynaa ay tahay inay waxay ku wajahantahay hadda markaan waxay ku wajahantahay codkayagu wuxuu ku wajahanyaa intaanu sheegnay oo Puntland ugu soo horeysay ku wajahaya arintaas baanu ka digaynaa arintaasaan falxumadee sheegaynaa
arintaasaanu sida loo dhigay inayn ahayn sheegaynaa arintaasaanu mudaharaad ka qabnaa sidii odayaashii hore sheegeenna annagu nabadaan ka shaqaynaynaa meel kasta nabadaanu xadadaynaa meel aanu joognaba dhaqdhaqaaqaanu diidanahay Soomaaliya dhibaatadeedaanu diidanahay Puntland dhibaatadeedaanu diidanahay ehelka dhibaatadiisaanu diidanahay waxaanu raadinaynaa waa nabadda in la arko oo runta laga sheego oo arintaas noocaasa dadkii caawa falkiyay wuxuu yahay lagu cadeeyo oo dawladda Puntland ay waxay ka qaban lahayd ka qabato adduunka ogeysiiso sidaa weeye waxaanu ka hadlaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.